sanaa xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Muqdisho kuwaas oo dibadbaxooda ka dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada. Dadka dibadbaxaya oo isugu jiray haween iyo caruur ayaa watay sawirada madaxda dawladda iyo boorar ay ku qoran yihiin halkudhugyo kala duwan. Waxaana badankood ay ka soo baxeen xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan, Waabari iyo Howlwadaag. qaar kamid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay iyagoo ku baaqay in xukuumadda aan la gelin qalqal siyaasadeed. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta kugu soo banaanbaxno magaalada Muqdisho annagoo dareenkeena iyo Soomaalinimadeena muujinayno. waxaan doonaynaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dawladda oo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadda inay yihiin kuwa ugu wanaagsanaa ayna soo mara. qaxooti baan nahay dhul ma haysano wadankeena nabad in looga dhigaan rabnaa. Farmaajo waa mahadsan yahay, Xasan Cali Khayre waa mahadsan yahay. waxaan rabnaa dadkii dalka Allah nabad Allah nooga dhigo. haddaan hayawaankiisa burburkiisa joogay 27 sano ayaan burbur iyo kala dambeyn la'aan ku jirnay. iftiin baan noo baxay, iftiinka yana laga hor istaagin aaway dadka u doodayo dawladda duminayo 27 sano xagga jireen madafiicna lagu laayay xagga jireen xasuuqii shaamba xagga jireen dawladda saxay hadda inoo dhalatay ma garatay cadaaladii la arkanay in la arqalayo la hor istaagan rabaa wixii dawladda naga istaagay Allah naga qabto ilaahay naga qabto dawladda oo sharaf leh oo maanta noo dhalatay oo noo wanaagsan dhibaato ka baxay mooriyada qorays la wareegaysa ka baxay qof dilaa ka baxay yaa maanta sharci baan haysanaa ninkan dilo waa la dilaya awal ma haysan jirin ninka guriga cadaaladda haysanaa yaa naga hor istaagin Allah laga baqo rasuul laga baqo. dibadbaxayaasha oo lug ku soo maray wadada Maka al-Mukarrama ayaa gabagabadii isku dayay inay ku hor banaanbaxaan xarunta baarlamaanka Soomaaliya halkaas oo ciidamada ammaanku u diideen inay tagaan. waxaana ciidamadu ay ku kala eriyeen dadkii dibadbaxayay rasaas ay kor u ridayeen. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Cable.